السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادا channel كيغا سلطانك مشاريعدا أنا ولالكين عبد العزيز maanta iyo mashruuc cusub maanta mashruuceena wuxuu ka hadlayaa mashruuc anigu runtii aan u arko mashruuc murbixa inuu yahay laakiin dadka kale ma aqaan say u arkaan mashruuceena maanta wuxuu ka hadlayaa dukaanka geedaha lagu gado ama mashtalka saa u taqaantiin طبعا دكانka qofkii wuxuu ku gadi karaa geedo dabiici ah iyo ubaxyo iyo waxay la mid ayuu ku gadi karaa iyo wuxuu ku gadi karaa geedaha sinaaciga ama kuwa caaga ka samaysan طيب mashruucaas qofkii see buu ka faa'iidi karaa muxuu u baahan yahay imisa shaqaale u baahan yahay alaabta ama yani geedaha misalan sinaaciga halkee laga helaa qofkii imisa ku soo xareyn karaa raas maalkiisa ama waxaas insha Allah waan ka hadli doonaa ku soo dhawaada channelkeena haddaad qof cusub tahid waxaan rajeynayaa inaad like ii saartid videoga leeno like aad u qiimo badan saameyn buu yeelaya insha Allah waxaan u mahadcelinayaa walaalahayga qaaliga inta comment fiican iga bixiya ma sha Allah ya assalaamu calaykum iyo wadnaha casaa u saara meesha marka aad baa u mahadsantihiin insha Allah mashruuceena galno مشروع geedaha dukaanka geedaha lagu gado ama mashtalka saan sheegnay wuxuu kala baxaa labo mid lagu gado geedo dabiici ah oo ka baahan biyo maxaan ku dhahay ka baahan miro inaad keentid meesha aad ku beertid oo alkaalkaalisid طبعا taa waxa aad u yaqaan dadka dhigtay ziraacada ama agriculture-ka saa u taqaantiin iyo waxa jira midka kale dukaanka ay geedaha lagu gado caaga أنا runtii kaasa ila fiican لأنه سا يعني جوجينا واتقانتان Soomaaliya biyihii baa maaragtay biyihii macaan aad bay u adag yihiin inaad heshid yani kharash fara badan baa qofkii ka baxaya hadduu geedo oo dabiici ah oo maaragtay meesha ku gado ama meesha ku abuuro waxa fiican geedaha sinaaciga waxayna ku fiican yihiin wax kale maahan awalan biyo ma ka baahnaa ثانيا كناعي وحي لمدا ماشي كما أركست ثالثا مركا مارتي جيدها نظيفين السدي وحا وسخ ملهن هدي بور ير وحا صار ولا مسحة ضد كانوا بدنا وحي جعلين جورجودا يعني دكتان جيدها بلاستيكا أما جيدها صناعية أما وحياها صناعية وان يعني عيد قضة waan ku aragnay meelaha lagu gado meelaha kooda alaabta arooska iyo waxa waan ku aragnay laakiin meel gaar u ah geedaha sinaaciga ama dukaan gaar u ah ma arkin waa laga yaabaa inay jiraan laakiin waa wax mumtaaz ah yani loola talinayo la siyama rag ama dumar ay ka shaqeyn karaan shaqaalaha hadaan ka hadalno shaqaalaha waxay u baahan tahay kaliya على حسب dukaankaaga intuu leeyahay mid weyn baa mise mid yar baa rabta inaad ku baraawdid mashruucka يعني qof ka sheerka fadhiya ama dadka lacagaha waxa ka qabsada iyo qof kale ma aragtay meesha dadka u sharaxa geedkan waa caynkaas weeye kaas halkaas la dhigaalay inuu geedu waa anwaac weeye qaar baa albaaka irida la hor dhigi karaa oo magaranaysa qorraxda oo adkeysada qaar baa gudaha guriga la dhigi karaa qaar baa darbiga la suraa qaar baa magaranaysa albaaka iyo waxyaabo meelahaas la suraa kul gabdhaha si fiican u yaqaan يعني wuxuu u baahan tahay qof customer-ka waxa la tacaamulo u sharaxa kaas wasaas way ka wasaas way kan qiimihiisa wasaas way iyo qofka sheerka fadhiya mabda'yan haddii meesha ay sii weynaato oo maaragtay shaqaale kale aad keensanaysid halkee aan ka soo dalbaa geedaha طبعا hadeer xirigan aan joogno wax kasta way fududaadeen online ba wax lagu dalbaa aad u fududahay China iyo wadamada Asia wax ka dalbanaysa laba week gudaheed ku soo gaarayaan wadanka indee adoo qiimaha maaragtay soo dejinaya oo isku xisaabinaya oo faa'iidadii wixii saaran kara marka insha Allah taala mashruucaas cidii daneynaysa insha Allah ha ila soo xiriirto ana insha Allah wax si faahfaahin siin kara يعني videogan waan iga soo taabtay ama toosh baan igu ifiyay laakiin wixii faahfaahin aad u baahantiin insha Allah waad ila soo xiriiri kartaan description ka aad ka helisaan insha Allah lambarkayga ama gmail-kayga waxa meelaha adiga la xiriiri kartaan insha Allah taala haddaad weli like noo saarin dee like noo saar marba dad halkan gaartay طيب aniga hadeer waxaan sameeynaya waxaan nigeenaya
dukaan lamid ah oo meel ka furan baan geenaya. waad arkaysaan quruxdiisa iyo soo meesha u kala nidaamiyay iyo meesha say u qurux badan tahay iyo customerka meesha ka buuxa. يعني dadka aad bay u jecel yihiin geedaha waayo geeduhu yani jamiic anwaac keeda u baxyada iyo waxa guriga qurux ka dhigaan. annagana dee guryaheena waa taqaanta qofka wax fiican gurigiisa qurux ka dhigo يعني naftiisa u fiican tahay ahalkiisa iyo martida u imaanaysa. marka insha Allah taala meesha aan aadno ila daawada insha Allah taala aad ba mahadsantihiin haddaad halkan soo gaarteen. أنا walaalkiin Cabdilcasiis ah aad baan u soo dhawaanay channelkayga. haddaad mashaariic iyo ama wuxuuna danaynaysid ku noqo fiidiyohadeedii channelka ku jira aad ba wax ka faa'iidi doonta insha Allah taala. waa intaas aan ku koobiyo insha Allah muuqaalkan aan sii daawano. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan ii salaamay. waa kan meeshii baan ku jira oo geedihii lagu gadayo igala lahaada codkayga si fiican u maqleen. waa kuwa yar yaraa jira kuwa waaweyn ah. waa u jeedaan meesha see loo habeeyey. waa ka kuwa yar yarka dadka markay arkaan wax u maleynaya wax dabiici inay yihiin laakiin waa wada caag u badan yihiin. ما شاء الله meesha saas loo bahalkeenayaa mashruuc aad u wanaagsan weeye. waa u jeedaan ما شاء الله يعني سيني sheega mashruucan qofkii ku dhaqaaqa aad buu wax ka helaya. kuwan waa kuwii darbiga la suri jiray saas loo jiraa ama albaabka xataa waa la suri karaa. waa ka ayaga dusha suran. ما شاء الله weeye meesha. tanna waxay u eg tahay tan caadiga way u eg tahay marka waa weeye laakiin waa caag weeye waa u jeedaan. dana marka ka yara fogaatid waxaad u jeedaa inay tahay sida kan dabiiciga oo kale kaliya boorkaad ka masaxaysa. okay marqan guriga iridiisa dhigi kartaa maxaan ku dhahayaa guriga dhexdiis. ما شاء الله nooc kasta baad keeni kartaan. iga raali hada mikrofoonka ma xirni codkayga ma aragtay